بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bishii 10aad sanadka 2010 ayuu Sheekh Cumar Faaruq muxaadaro diini ah oo dhinacyo badan taabanaysa khadka telefoonka ugu jeediyay jaaliyada Soomaalida ogaadeenaya ee ku dhaqan magaalada Perth ee galbeedka Australia. muxaadarada diiniga ah ee uu sheekhu jeediyay oo ku wajahnay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha caalamka ayaa ahayd muxaadaro dareenka dadka kicisay. dhanka kale waxaa sheekha la weydiiyay su'aalo diini ah oo ku saabsan halganka ogaadeenaya ka socda ee ay jabhadda ONLF hogaaminayso, waxaana fududeysay duubista iyo soo bandhigidda shabakada warbaahinta ee Qoraxi Online. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ عمر فاروق. محاضرة قيمة ee noo soo jeedisay ilaahina waxaan ka rajeynaynaa in uu naga dhigo kuwii ku camal fala ee qaata. adigana waxaan ilaahay kaaga rajeynaynaa inuu ajri iyo xasanaad uu kugu ziyaadiyo miisaankaaga yaan ilaahay ka rajeynaynaa. جزاكم الله خير. آمين يا رب. waxaan doonaynaa inaanu haddii ilaahay yiraahdo afar su'aalood baan rabnaa inaanu ku weydiino. su'aasha ugu horeysa Sheekh Cumar Faaruq waxa weeyaan ururka ONLF ee dagaalka kula jira Ethiopia ma bannaan tahay in lagu taageero naf, maal iyo maskaxba? بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ururkaasi waa urur wanaagsan oo xaq u dirida oo la dulmay gaalo dul degtay oy dadkoodii iyo dalkoodiiba adoonsatay, dunyadoodiina dhacday, iyaguna u dulqaadan waaye taa ka dhiidhiyey, sidaa darteedna u dagaalamaya. haddaba ururka waa in naf iyo maalba lagu taageero oo la ayido oo la gargaaro. كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لو هدي انت إلى أبو قرقرتان إذن قدل ما وحا إذن واجبة إن أبو قرقرتان. وإن استنصروكم في الدين حتى انت إذن قرقرتان ما فعليكم النصر waxaa idinku waajiba inaa u gargaarsaan oo hiil iyo hoo isla garab taagsaan oo waxaad heli kartaan amaad haaban kartaan aydaan ka hakran. marka ururkaasi waa urur xaq u dirira, gaalada la dagaalamaya, dalkoodiina gobonnimo u doonaya, muddo badanna soo halgamayay, hadeerna halgankii ku jira. kolka ururka in la taageero weeye. wabilaahi tawfiiq. jazaak allahu khayr Sheekh Cumar Faaruq. su-aasha labaad ee kale waxa weeyaan dad Soomaali ah oo muslim sheeganhaya ayaa la safan Ethiopia oo la dagaalamahaya dadka xoreynhaya dalkaas. muxuu yahay dadka xukunkoodu marka? بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد قالوا وحي صور راعة وقالت قعشرة يجب الحكم نغنى يا كلك ولا وانين ولا وعدين ولا عقد أرين حتى يوان سمان ويوعدي يوانذي قاتان oo ay gaaladii ka hadhaan oy hagaagaan waa sidaynu doonaynay. laakiin hadday gaaladii ku marmaan kana hadi waayaan soona hogaamiyaan raacaanna waa la layn sida kuwa gaalada loo laayay
ayaa iina loo layn wabilaahi tawfiiq. jazaak allah khayr. su-aasha saddexaad, talis gaalo ah oo haysta dad iyo dal muslim ah, xoogna ku haysta, dagaalka ka dhexeeya ama heshiis nooce ah ayaa dhex mari kara? bismi illaahi araxmaani iraxiim. wabacdu, dadkaas muslimka haysta oo dad iyo dal iyo dunyo muslim leeyahay haysta, quwo iyo xoogna ku haysta, in ayna ka adkaadaan amaynu ka adkaano maahe heshiis lala geli karaayo ma jiro. oo in ay muslimiintii dullaystaan, dad iyo dalbana gumaystaan, dunyadoodiina ka dhacaan, looguna dulqaato taas suurtagal ma aha. kolkaa waa lala dagaalamay, waana layska dhicin. sidaasaa diintu ina faraysaa. wabilaahi tawfiiq. jazaak allah khayr. su-aasha u dambaysa sheekh cumar faaruq waxaa weeyaan, ummadda soomaaliyeed ee degan ee ilaahay ku abuuray geeska africa iyo dhammaan ummadda muslimiinta ah, maxaa xil ah oo ka saaran garabsiinta walaalahooda la gumaysto ee u dagaalamahaya in ay dulliga saaran iska dulqaadaan? jazaak allah khayr. qaala allahu tabaaraka wa tacaala wain istansaruukum fi diini facalaykum nasru. haddii dad muslima oo la dulmay oo la duldegay oo la gumaystay oo dad iyo dunyada la dullaystay ayday ka dhidhiyaan kacaan, inay waxaa iska dulqaadaanna u kacaan, in alla inta muslimiinta ah ilaahilkood waxaa ku waajiba inay u gargaaraan oy hiil iyo hoo isla garab taagaan ilaa ay dadka muslimiinta ah dulliga iska dulqaadaan. sidaasaa waajib ku ah. wabilaahi tawfiiq. aada iyo aad baad kaaga mahad celinaynaa fursadaada qaaliga ah eedna siisay. jazaaka allahu khayr sheekh cumar faaruuq, waktigaaga qaaliga ah, muxaadarada aad noo soo jeedisay, ilaahay hanaga dhigo kuwii ku camal fala. waxaanan insha allahu aan rajaynaynaa inaan ummad badan aan gaadhsiino messajkaagan qaaliga ah ee aada noo soo gaadhsiisay. xayaakum allah wabayaakum allah, baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra aljazaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu. calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu.